dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa maanta si isku mid ah u soo dhaweeyay xal u helidda khilaafkii baana in muddaha ka dhex aloosnaa xildhibaanada muxaafidka iyo mucaaridka ee golaha wakiilada Somaliland waxaana ay bulshadani ku amaaneen odayaasha aqalka golaha guurtida Somaliland oo ahaa odayaashii ku dhex jiray turxan bixinta khilaafkii golaha wakiilada Somaliland iyaguna ku amaanay mudanayaasha golaha guurtida Somaliland sida ay mar walba uga taliyaan samaha shacabka reer Somaliland sidoo kale waxay bulshadani si kaliya laaba u soo dhaweysay sagaalkii qodob ee gudidii loo xil saaray turxan bixinta khilaafkii golaha wakiilada Somaliland ay heshiis uga dhigtay golaha wakiilada Somaliland waa kuwan bulshadaasi iyagoo ka hadlaya dareenkooda iyo sida ay u soo dhaweynayaan xal u helidda khilaafkaasi waxaanu kala raacinaynaa khilaafaadka golaha ka yimi ee la xalilay ee guurtiga ay ku guuleysatay waanu raacsanahay waanu ku ogolahay waanu ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh waxaan u arkaa khilaafka ay dhexdhexaadiyeen golaha guurtida mid gudoomiye si fiican u dhamaaday arrinkii dadka ku tagnaa Soomaaliland laga baqayay wax dhacaana si fiican loo soo afjaray hambalyaanay mideen guurtidu in lagu hambaliyeeyo waana ku maaseen markasta wax dhacaana golaha guurtidu si fiican bay u dhameeyaan si wanaagsan ay guurtidu hawsheedu u dhameysay si wanaagsanna qalalaasiya naxdintii way uga dambeeyeen haddana ay dadweynaha waxaan soo sheegaynaa golaha wakiilada iyo dadweynaha inuu nabadda wada ilaalino golaha baarlamaanka iyo khilaafkii shalay toole sida wanaagsan lagu dhameeyay waxaan u mahad celinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ah isagu maamulkeena kanwalkaaynaad waxaan marlabaadka u mahad celinaynaa golaha guurtida oo runtii iyagu ah lafdhabarta Somaliland waxaan ku hambalyeynaa golaha guurtida khilaafkii golaha wakiilada ay ku dhameeyeen oo ku hambalyeynaa hadan lahay gobolka Saaxil waxaan aad u hambalyeynaa sidii ay yeeleen golaha odayaashu mar walba iyagu baa nabadgelyada wadanka aad iyo aad uga shaqeeya oo haddii isqabato iyagu baa dhexdhexaadiya khilaaf kasta wadanka ka dhacana iyagu baa si odaytanimo leh u dhameeya Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV magaalada Berbera.